xiriiryaha xisbiga mucaaradka ee gobolada galbeedka Soomaaliya maanta si gaar ugu warramay telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa hore waxa uu gaashaanka ku diray dib u dhac ka muuqda diiwaangelinta doorashada la filayo in sanadka 2017 ka qabsato Somaliland waxa uu ku micnay taasi inay keeni karto dib u dhac ku yimaada doorashada laftigeeda isagoo Cumar Daahir arrimahaas ka hadlaya ayaa hadaladiisa waxa kamid ahaa waxaan halkan kaga hadlayaa arrimaha diiwaangelinta waad moodayso inay si u gaabinayaan iyadoo maanta qalabkii iyo wax walba ay yaalaan haddana komishankii doorashooyinka qaranku waan arkaynaa marka qaar inay xagga burco wax ka wadaan waxa kale oo ogeyn afduubkii ka dhacay baran iyo gobolka Sanaag qaybo ka mid ah waxay arrimaha laftoodu waxay walaac weyn aan uga qabnaa inay keento dib u dhac xagga doorashada sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda ama wasaaradda arrimaha gudaha ee looga baahan yahay inay sugto amniga in gobolka Sanaag arrimaha ka jira ay si degdeg ah u soo abjarto geesta kale xiriiryaha xisbiga mucaaradka ee gobolada galbeedka Soomaaliya waxa uu si adag u cambaariyay gacan ku hadal loola tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee gobolka Saaxil oo aan aad iyo aad ugu xumahay falka gacan ka hadalka iyo shirqoolka isugu jiray ee loo geystay gudoomiyihii gobolka Saaxil Marwar Rooda Axmed Yaasiin taasoo lala xiriirinayo mas'uuliyiinta ka soo jeeda xukuumadda kulmiye arrinka aad iyo aad baan uga xunahay ma aha markii koowaad ee ama wariye ama qof axsaabta mucaaradka ku jira la hagardaameeyay ma aha markii koowaad waxaan ogeyn wariyaashii axsaabta mucaaradka iyo fikirada maxalliga soo gudbinayay sida loo dhaqmayo sida wariyihii maaragtay burco kii Hargeysa iyo kuwa badan maanta waxaan arkaynaa madaxda axsaabta mucaaradka oo lagu shirqoolayo meelaha qaar ugu dambeyntii Cumar Daahir cilmi xiriiryaha xisbiga mucaaradka ee gobolada galbeedka Somaliland waxa uu tacsi tiraale u diray ehelada qaraabada iyo bahda warbaahinta Soomaaliyeed oo uu ka tacsiday geerida naxariinta maalinta shalay ku timiday wariyaha caanka ah Axmed Xasan Cawke Allah u naxariisto oo shalay galinkii dambe lagu aasay magaalada Togwa Jaale halkan waxaan tacsi tiraale uga dirayaa dhammaan ummadda reer Somaliland iyo dhammaan wixii af Soomaaliya ku hadlaa geeridii ku timiday suxufigii weynaa wariyihii weynaa ee Axmed Xasan Cawke oo shalay habeen hore ku geeriyooday magaalada Jigjiga shalay galinkii dambana lagu aasay magaalada Togwa Jaale waxaan leeyahay Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo eheladii qaraabadii iyo qaranka reer Somaliland iyo dhammaan wixii af Soomaaliya ku hadlana iyo bahda warbaahinta caalamiga waxaa leeyahay samriyeeban Allah ka siiyo Mustafa Caraale telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Boorama